shalay ayay ahayd markii dibadbax ay dhigayeen arday ka biyadiidan hadalka wasiirka wasaaradda waxbarashada ee ahaa in imtixaanka dib loogu noqonayo ay ka dhaceen magaalada Muqdisho. Dibadbaxyada ayaa ka dhacay qaybo ka tirsan gobolada dalka waxaana jiray khasaare soo gaaray ardaydaasi dibadbaxa dhigayay. Xarig iyo jirdil ayay ahayd waxa ugu weyn ee ay ka cabanayeen oo ay u geysteen qaar ka tirsan ciidanka dawladda. wasaaradda waxbarashada oo saaki anagoo joogna taalada daljirka daasoon aan iskaga banaan baxayno oo ka dhiidhinayno wasiirka waxbarashada oo yiri 6 maado aad gasheen waa cancel. wasiirka waxbarashada waxaan u sheegaynaa 6 maado aad dhihiisu waa cancel. markii aad maqneed waxaad ku tashatay in aad tiraado 6 maado waa cancel. waxay ku qoran tahay ID card-ka 31 bishii shanaad. waxa kaliya aad ku tiri waxay tahay bishii shanaad wax kaliya aad ku tiri waxay tahay inaad imtixaanka aad cancelshid 27 bishii aad bilowdo imtixaan kale. waxaadoo dhan waa la socnaa. maanta waxaad noo ageeysatay ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliyeed iyagoo ah ciidamo yaryar oo aan aqoon habka loola dhaqmo ardayda Soomaaliyeed. Dhibaato ayaa ka dhalatay in ardaydaasi ay bannaanbax dhigaan iyagoo ku soo horjeesanayay in imtixaanada dib loogu laabto isla markaasna kii hore uu yahay waxba kama jiraan. haddaba yay tahay cidda qaadan karta mas'uuliyadda maadaama ardayda aysan si fudud ku heli karin waxa loo yaqaano qishka. dembiga dad baa mas'uul ka ah imtixaanka waxa mas'uul ka ah xafiiska imtixaanaadka gaar ahaan si guudna wasaaradda iyo dawladda mas'uul ka ah. marka hadduu khalad yimaado khaladka waxa ay tahay in la saxo inay saxaan waa wasaaradda. cidda ay tahay in lagu fuliyana waa ciddii lagu tuhunsan yahay inay bixisay oo mas'uul ka noqonayo xafiiska imtixaanaadku. ciqaabta ka dhalanaysa dembiga inta la eg waxa la saaraya ciddii mas'uulka ka ahayd. kaliya ardayda dhibka soo gaaraya waxay tahay joojinta imtixaanka oo ay tahay iyagana in lagu qanciyo inay dantooda iyo mustaqbalkooda ku jirto cid waxbarasho ka aqbalaysaana aanay jirin sare oo jaamacadeed haddii ay sidan ku soo baxaan. sida ay sheegayaan ardayda waxay hore u soo qaateen 6 maado imtixaanadooda waxaana u dhimanayd 4 maado. balse Cabdullaahi Goodax Barre wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa gabi ahaanba meesha ka saaray imtixaanadii hore loo qaaday. dhibaato intee leeg ayay tabanayaan ardaydan doonayay dhamaystirka imtixaanka shahaadiga ee fasalka afraad ee dugsiga sare. waxaan leeyahay aniga maanta dib noola geystay ardaydeena banaanbax u soo baxnay in la gurbiyo shaqad lagu aruuriyo soo wasaaradda waxbarashada ma wada keenin. dhibkaas maxay tahay ardayda Soomaaliyeed maxaa sidaas loo galayaa anaga arday waxbarasho u soo baxdaan waalida waxna soo baran dhibaa soo marna rafaada soo marna lacagana la soo dhididaan la soo dhididay way dawladda noo dhaheys marka waxbarashadii soo barnay xilligan saan oo galay 6 maado nooga kansalayso. waxa loogu yeero qishka ayaa ah mid halis ku ah waxbarashada ardayda Soomaaliyeed. inta badan waxa kaliya ee aad looga ilaaliyo in ay isticmaalaan ayaa ah qishka. haddaba ma ardayda Soomaaliyeed ayaa ah kuwa ugu horeeyay ee isticmaala qishka mise dalal kale ayaa la mid ah ama ugu horeeyay arrintan. dalal badan oo ka mid ah Suudaan oo 2013 iyo 9 iyo 3 intaba imtixaanaad saan oo kale soo bixin baa jiray waa la joojiyay. Nigeria jirtay waa la joojiyay. Mareykanka asaasoo kale mar dhacday waa la joojiyay. Ethiopia ku dhacday waa la joojiyay. kaliya go'aanka ay dawladdu gaarayso waxay ahayd in imtixaanka la joojiyo dabadeed dib loo qaado imtixaan cusub dib loo diyaariyo ciddii bixitaanka imtixaanka mas'uulka ahaydna mid intii loo dabagalo maxkamadda soo istaajiyo la xiro talaabo sharciga waafaqsan laga qaado. qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa iyagu ka biyadiiday hadal ka soo baxay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. waxaa maamul goboleedyadaas ka mid ah maamulka Hirshabeelle oo isagu sheegay inaan joojin doonin imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare. wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Galmudug ayaa isagu ka mid ah waxaana baaq u diray wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana uu sheegay in ay kulan degdeg ah yeeshaan wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradaha waxbarashada ee maamul goboleedyada dalka. Kanaan Cabdulqaadir Xuseen warbaahinta dalsan Muqdisho.